بسم الله الرحمن الرحيم. maantay waa labadii bisha December 2013 waxaan ahay Prime Minister-ka xukuumadda Soomaaliya oo halkii sano u dambeysay soo shaqeynay diyaarna waxaan ahay intii alla ii qadaro inaan dalkayga iyo dadkayga u sii shaqeeyo. maanta waxaan u qabtay kulankan gaarka ah inaan la wadaago ummadayda iyo caalamkaba arrimo la soo dartay dowladnimada Soomaaliya oo mararka qaarkood ay habboon tahay inaan hoos ugu hayno si fiican dadka loola qaybsado si caafimaad leh oo dibaynin dowladnimada Soomaaliya dadka Soomaaliyana aanan ka mixnayn. sidaas waa sida aan maanta ku talagalay. ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa akhbaartan si degan oo maangala inaanu u kala dhageysano. waxay isugu jirtaa taariikh kooban iyo khudbad dheer oo nagu talagalay in ummadaydu ay dhagahooda ku dhageystaan. waa mahadsantihiin. labo ilaa 3 wiil oo la soo dhaafay waxaa jiray ismaandhaaf yar oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha. ma rabo inaan aad uga faalloodo, laakiin waxaan ku tilmaamay saldigiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacna taariikhdii Soomaaliya dhinac kala ah oo 10 sano oo la xiriirta iscasil iyo iscasili maayo. arrintaasi arrin fudud ma aha, laakiinse 10 sano u dambeeyay taariikhda dowladnimada Soomaaliya way ka dhex muuqatay. arrintaas iyada ahi waxa weeye maantay anay mudatay inaan wax mudan ka iraahdo xal macquulana u helo sidii danta caamka ah iyo danta dowladnimadu ay ku jirto. arrintaas ayada ah markay ila soo gudboonaatay waxa igu dhacay isla markiiba madaxayga ku soo dhacay waxyaabo badan oo si degdeg ah inaan u gocdo oo jawaab ugu helo ay xasab noqoto. waxa igu soo dhacay taariikhdii warkan asaga ah oo iscasil iyo iscasili mahayo iyo dhibka uu dowladnimada Soomaaliya ku soo qabtay 12 sano oo ina dhaafay. waxaan xusuustay laga bilaabo Prime Minister Ali Galleed ilaa iyo Prime Minister Abdiweli iyo intii u dhaxaysay oo dhan mid uma tirinayo, laakiin dhammaan waxay ahayd hal mushkilad oo soo jiitamaysa oo runtii si xal loogu helaa ay adkaatay. markastana dowladnimadeena iyo rajada ummadeena wax u dhimaysay. waa igu soo dhacday arrintani inaysan ahayn arrin iska timid, laakiinse waxyaabihii dowladnimadeena gaasirayay oo taariikhda noogu jiray qayb kamida inay tahay. taas waa igu soo dhacday. waxa kaloo igu soo dhacday isla markiiba rajada badan iyo hanka badan oo dowladnimadeena maantay ay mudan tahay in loo qabo dadkuna uu u qabo caalamkuna ka sugayo. isla intaa marka kadib waxaa igu soo dhacay in golaha baarlamaanka oo la igeeyay bishii November 2012 uu igu ansixiyay kalsoonina igu siiyay 219 cod iyadoo ay fadhido 225 xildhibaan. 6 maqan 3 baa aamusay, 3na maya bay yiraahdeen. aad bay culays igu noqotay 219 xildhibaan amaanadii ay saareen. waxaa kale oo igu soo dhacday sheeko Soomaali marar badan aad dhaqankeena looga yaqaan oo marka qofka ay la soo gudboonaato arrin inuu ka jawaabo ay noqoto aan aad dhaqanka uga dhex arko oo aad wada xusuusan kartaan oo ahayd haddii mushkiladu kugu timaado su'aal adagu kugu timaado ma waxaad uga jawaabaysaa si adiga kuu roon mase si taariikhda iyo dowladnimada u roon. si kale marka loo dhaho dhaqanku wuxuu oran jiray ma waxaan uga jawaabnaa si annaga noo roon mase si ilmaheena dambe u roon. anigu waxaan u dhigay ma si aniga ii roon mase dowladnimada iyo mustaqbalka Soomaaliya u roon. umuurahaas oo dhan waa igu soo dhaceen. jawaab degan yaan dib u ceshay anoo aanan waxba runtii aysan ugu dhicinin kale. waxaan idhi arrintani ma waafaqsana dastuurka iyo nidaamka dawliga ah
fadlan aynu waafajino sida caadiga ah runtii arrintaas ayada ma aanan diyaar u ahayn inaan wax xun ama wax dhiba marnaba aan aniga iyo madaxweynaha iyaga ayna dhex maraan madaxweynaha iyaga aan sharaf badan u hayo runtii laakiinse waa ka badin waaye markaan intaasoo dhan soo eegay waxaan arkay inay habboon tahay in arrintan xal loogu helo si waafaqsan constitutionka si waafaqsan dowladnimada inaan lagu xallilinin suuq madow iyada oo aysan runtii intaasoo taariikha ay lahayd waxa weeye waa in la mariyo wadada aan is oran karno sidaan baa dowladnimada iyo dastuurka dan u ah sidii baan anoo aada u degan u sheegay madaxweynaha inay habboon tahay arrintan inaan haa iska idhaahdo dowlad iyo dastuur baynu leenahay ma nihin ciidan dhulka ku qabsaday xoog waxaanu ku qabsanay dadka ogolaanshiyo iyo dastuur baanu madax ku noqonay inaanu midaa si degan aynu u aqbalno inaanu marino dastuurka iyo marinka dawliga ah way ka soo gudubtay intaas markay noqotay arrin aada beledka loogu ogyahay laakiin anigu aan ku faraxsanahay inaanan si degdega u shaacinin waxaan soo saaray press release aan oranahayo arrintan waa arrin constitutional crisis salkeedu yahay ee ma aha arrin siyaasadeed waa in lagu xallilo qaab waafaqsan institutionska soomaaliya si waafaqsan gacanta soomaaliyana waa inay xal loogu helaa marka aan saa leeyahay waxaan diidayay oon ka hortaagay dhaqankii ahaa in dibadda laga yimaado dhexdhexaadin la galo ama inta la yidhaahdo soo baxa banaanka aad ku maqashaan madaxweynihii iyo prime ministerkii baa wax soomaaliya la xiriira dhexdooda lagu dhaxay aada bay ii damqaysay waana dhaqanada inay bedelmaan ay dhab tahay ana ku talagalay inay bedelmeen statementigaygi si kooban wuxuu ahaa arrintani waxay salka ku haysaa constitutional crisis faragelin dibaddana uma baahneen waa in institutionska soomaaliya gudaheeda lagu xallilaa go-aankaas inaan qaato waa ku faraxsanaa waxayna iga ahayd waxtar u ah dowladnimada iyo inaan baranno khilaafkeenna inaan la aadno si dastuuri ah inaan inta uga fakero xal gudaha araadano marka aan saa lahaa waa hubaa inaan contribute gareeyey inay wax noo taraaba inaanu kobciyo oon baranno sida khilaafaadka iyo ismaandhaafka iyo wixii laysku qabto aynu u niraahno maya waxaan ka leenahay constitution runtii arrintaas waafaqsan bay ahayd nasiib wanaag arrintaa waa ku guulaystay wayna noo hirgashay inaysan naga noqonin mid dibadda laga soo farigeliyo arrintii ka bilaabatay khilaafka noocaasa oo asalkiisa constitutionalka u arkahayay muddo gaaban gudaheed waxay isu bedeshay mooshin baarlamaanka taga lama yaabin laakiinse mana filayn mana ku faraxsanayn sababtoo ah dariiq bay lahayd qaab bay lahayd mooshin baarlamaan oo xukuumadda si gaar ah wax looga tabanayo oo la leeyahay shaqadeedii waa ka soo bixi weyey ajandaha aan ka wada hadlaynay mid gaar ah buu ahaa maahe mid halkaas gaarkiisa runtii ma ahay ayada laftigeeda kama nixin maxaa yeelay waxaan diyaar u ahaa horeyna ugu soo noqday maanta meesha soomaaliya marayso waxyaabo badan in lagu talagalo in la barto xal uguba oo waara oo dulqaad leh in loo helo tii baan u arkay tii baan la tacaalay isla markii aan arkay in la diyaariyey mooshin oo arrintii dhanka baarlamaanka ay u wareegtay waxaan sameeyey isla markiiba warqadan ayaan u qoray guddoomiyaha baarlamaanka oon leeyahay waxba kama qabo in arrintii ay isu bedeshay mooshin laakiin ha la siiyo xukuumadda fursad ay isku difaacdo oo bal arrintan moshinku ku xusan inay tahay arrintan sida aynu u aragno bal hanala ka dhageysto kadib say ugu fududaato xildhibaanada inay ayagoo macluumaad haysta codkooda iyo waxay la noqoto ay ka dhiibaan waa mahadsan yahay guddoomiyaha baarlamaanku si aada u dhow u soo dhaweeyey xaqna waad u leedahay waana ku siinahayaa kala dooro maalinkay arrintu bilaabanayso oo mooshinka la akriyahayo iyo maalinka doodu dhammaato kee mid soo dooro
aad baan uga mahadnaqay halkaasay arrintu ku dhamaatay isla markiiba waxaan alleestigareeyey 10 wasaaradood oo xukuumadaydu ay ka kooban tahay wasiiradoodii waxaan u sheegay warqadan baan u qoray wasaarad walba ha soo diyaariso waxqabadkeedii si loo arko ummadda iyo baarlamaankana aan ula qaybsano bal halkiisano waxaa la qaybiyey dabcan aniguna waxaan ahaa hoggaanka xukuumadda waxaan soo diyaarsaday khudbad halkan ku jirta oo dheer oo ka horeynaysa intaan wasiirada sida gaarka loogu baahdo hortood inaan hadlo khasaba halkan waxaa ku jirta khudbadaydii dabcan 10 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadayda mid walba waxay la soo diyaar garowday waxqabadkeedii si aanu baarlamaanka iyo ummadaba ula qaybsano halkii sano wixii aynu qabanay ayaguna go-aanka ku habboon ay gaaraan ilaa iyo intaas arrintu way soo socotay kadib waxaa bilowday maalinkii shalay ahaa waxaan u tiri guddoomiyaha baarlamaanka anoo ka codsan raacahaya codsigaygii waxaan idhi intaan la furin dooda golaha waxaan rabaa khudbadaydan inaan akriyo waayahay buu yidhi isug ii diyaar garow 10 ilaa 11 inta u dhaxaysa waan u diyaar garoobay waxaan diyaarsaday oo soo dhaweystay khudbadaydan golahaygii sharafta badnaana waa wargeliyey si ay u soo diyaar garoobaan wixii ay qabteen jawaab ayaan weynay kadibna waxaanu na soo gaartay goluhu ma tegi doontaan waa la akrin doonaa eedayntiina go-aanna waa laga gaari doonaa arrintaasi waxay noqotay wax la yaabay sidee ku dhici kadhaa anoo ah prime ministerkii dalka anoo xukuumaddaydii mooshin laga keenay anoo muwaadin ahaan xataa xaq u leh haddii lay eedeeyo inaan go-aan layga gaarin in aan hadlo maahee sidee ku dhici kadhaa xukuumadda dhan ee soomaaliya oo constitutionalka oo maanta taagan inta mooshin laga keeno in la siin waayo fursadda ah inay istifaacdo waxaan la yaabay yaana eedaynahaya yaase dhankayga ka hadlahaya arrintaas xal waa u waayey laakiin wax la yaab lahay noqoto ummadduna waa la socotaa ilaa iyo haddana jawaab uma heli mar labaad baan fakeri sidii tii hore aan u aqbalay oon idhi yaana la faragelinin ha loo daayo umuuraha gudaha ma hadlin mar kale annaga international community saamayn weyn bay nagu leedahay hawlo badan bay nala qabtaan wax badan bay nala kaalmeeyaan dawladeenna aad bay u gacan qabtaan oo u garab taagan yihiin waxyaabo badanna waa nala og yihiin laakiin runtii ma alleerti garay sababtoo ah mar kalaa mabda ahaan waxay iga tahay mushkilada soomaaliya ha la barto gacanta soomaaliya in lagu xaliyo maanta waxay maraysaa iyada oo mooshin xukuumadda ka dhan ah oo ah midka halkan ku xusan oo ka kooban 5 qodob oo aanan hadda halkan kaga faalloonayn laakiin jawaabadoodii halkan ka hayo maalinkii labaad lagu dhageysanayo baarlamaanka anoo ah prime minister dalkana aan la ii ogolayn inaan ama dhageysto ama isdifaaco arrintaani waa arrin aad u xanuun badan laakiin maxaa gudboon su-aalahan iyo kuwo kaloo badan waa ila soo gudboonaan doonaan waxayse u baahan tahay maanta oo kale halkan markay marayso sidee xal loogu helaa xalku waxa weeye 2 arrimood waxa weeyaan marnaba ma eedaynayno baarlamaankeenu waxa weeye baarlamaankeenu waa dadaalayaa waxa weeye waa inuu xal helo waa ku dadaalayaa laakiin waxa jira wax aanan fahmi karin oo uu ku adag yahay waana garan karaa in mooshin iyo difaac ay isla socdaan laakiinse mooshin iyo difaac in la kala reebo waa wax ugub awey maxaa ku qasbay kolba uga darimayno baarlamaanka laakiinse mana aanan garowsan insaaf wax u dhacaan sidaa in wax u dhacaana runtii aad baanu uga xunnahay markasta wax badan baanu institutionskeena ugu dulqaadanaynaa sababo badan awgood laakiin midaani xoogaa waa kababadis waxaad moodaa inay adag tahay laakiin marnaba
principalkii ahaa soomaaliya yaan looga darin soomaaliya umuuraheeda gacmo shisheeya yaan lagu faragelin marnaba ma yeelayno oo kuma fakarahayo aniga iyo xukuumadayda laakiin way xanuun badan tahay meelahaasoo kale inaan horay uga soo gudubnabay ahayd si kastaba ha ku dhacdeen halkaas ayay maanta maraysaa su-aalo badan baa xalay ilaa shalay markii la yidhi ma tegaysid adoo prime ministerkii waddanka baarlamaanka yaa laysoo weydiinayay waxaa ka mid ahaa su-aalihii adkaayoo laysoo weydiinahayay maxaa la qarinahayaa oo inaad baarlamaanka ka sheegto la diidahayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii kaloo laysoo weydiiyey baarlamaanku adoo maqan oo xukuumaddeedii ay wada maqantahoo aysan isdaaficinin haddii ay go-aan soo saarto ma aqbali doontaa labada arrimoodba anoo kaga jawaabahaya mabda'ii ahaa horeyna iima soo marin wax soomaaliya u turid amaahee wax u dhimahayana ma samaynayo labadaba waxaan rabaa inaan ummadayda horteeda uga jawaabo midda hore maxaa la qarinhayaa ahay oo maxaa lagugu diidahayaa waxa aad og tahay oo la diidahayo inaad ummadda iyo baarlamaanka la qaybsataa maxay tahay waa ka jawaabayaa kow waa dhab inaan wax badan ogahay sababtoo ah 1 sano baan fadhiyey xafiiskayga oo prime ministerkii dhabta ahaa oo soomaaliya ahaa xog badan inaan hayo layskuma hayo laakiin waxaan caddaynayaa weligiina ma yeelin mana yeeli doono xog soomaaliya wax u dhimaysa inay wax u tagta maahee inaan ama meel public ah ka sheego ama dagaal iyo sidaani waa khalad ku sax inaan dhaho maya sidaa la'alligeed waa hubaal ubadaydan halkaan ku taalloon baarlamaanka ugu talagalay haba yaraatee wax soomaaliya dhib u ah ama dib u celinahaya institutionska maanta soo kacaya kuma jirto mana u ogoli taariikhdayda inay gasho saacid maalinkaasuu soomaaliya xagraday horeyna uguma jirin haddana ma geli doonto sidaa la'alligeed taas waa in laga walwalacaadaa wax khatar ah waadna dhegaysan doontaanoo waa idiin wada arkin doonaa laakiin mabaadi'da aan ku shaqeeyo oo dhan baaba waxay ahayd lagama yaabo wax kastoo ogahay wax jibu dhac ama shook gelinahaya geedi socodka soomaaliya ee dowladda in afkayga ay ka soo baxdo waan uga turahayaa waan jeclahay dalka iyo dadka waan u soo shaqeeyey mana rabo taariikhdayda inay in yar ay taabato waan ka gudbahayaa su-aasha labaad oo ah adoo maqan haddii baarlamaanku xukmi gaaro oo yidhaahdo sidaas baanu ka garanay ayadoo aan la isdaaficinin oo qodobadii lagu soo eedeeyey aan laga difaacay maxaad yeeli doontaa ayadana si sahlan yaan weliba horay ayadoo baarlamaanku uusan dhamaysan doortiisa uga sii jawaabahaya iguma jirto wax soomaaliya dhibahaya sina inaan sameeyo waa ogahay in arrintani marin darro tahay waa ogahay waxaan taariikhda ka dhicin inay tahay ma dacweyno caalamka uma sheeginoo inay soomaaliya dhibto ma rabo wax alla waxay soo saaraanna waa ku qancahayaa weliba waa ku dhiirigelinahayaa anoo maqan haddii ay iga go-aan gaareen ma dhahahayo saasaad yeesheen inta u tago yaan si sharaf la hortooda uga qiran doonaa hadday go-aan kasta oo ay soo saaraan taasna labadii arrimoodba halkaas ayaan uga jawaabahaya intaas maaha waxa aan ku dulqaatay waa waxyaabo badan muddadii koobnayd khilaafku waa dhib badan yahay waxaan ogaaday soomaaliya waxyaabaha muddada dheer ku-meelgaadhka aanu ugu jirtay dowladnimaduna nooga daahday xukuumad jirta oon wax qaban inaysan jirin waa waayo aragnimada aan helay laakiin khilaafku wuxuu ahaa waxa ugu badan oo dilahaya in xukuumadahaasi ay meelihii laga sugahayay ay gaaraan waxaan ka arkay 2 wiil ilaa 3 wiil oo ugu dambeysay inta soomaaliyada maanta ka go'day baan arkay waxaan ku soo dulqaatay ma aha hadda waxa weeye inaan soomaaliya kaga hagoogto interventionkii hala dhexdhexaadiyo odayaasha inaan kaga hagoogto crisis inaan ku abuuro baarlamaanka ma aqbali doontaa go-aankiisa iyo in kale inaanan eedaynin ama dhibaato kale aanan keenin maaha waxyaabo badan baan runtii kaga soo hagoogto soomaaliya ana ku faraxsanaa khilaafku markuu bilowday walwal baa dadka ku dhaca institutionska dadka jooga way kala tagaan gaar ahaan
ama way kala danaystaan gaar ahaan waxaan rabaa meel kale uma soo qaadanayo tusaale xukuumaddaydaan rabaa waxay noqotay in wasiiradii ay walwalaan markii ay noqotay in la yidhi khilaaf baa halkaas jira waxaad arkaysaa mid kugu dhowaanahaya iyo mid kaa durkahaya waa dhaqanka waxaa la yidhi marka khilaaf dhaco aad bayna dhib ugu badan tahay runtii waa yeeli karay si sahlan kuwa iga durkahaya oo dhahahaya dhaqan baa jiri jiray saas yeel ama sababo badan awgeed durkahaya waa yeeli karay inaan fire gareeyo saacaddaan la joogana kulligood waa wada rufsayn karaa kii alla kii aan damco shaqada waa ka fadhiisan karaa laakiin institutionska soomaaliya saas dan uma aha haddaysan dan u ahayna ma rabo crisis cusub inaan soomaaliya geliyo wasiirkani waa walwalay oo waa kaa warwareegay markaa ka aaso maya wasiirkani waa wasiirkaygii institutionist baan ka tirsannahay hadduu walwalay asaga maaha walwalku waa khilaafka kore marka hadduu yidhi ma halkaad aadaa ma halkaad kii igu soo cararayna ma gulnayn ilaahay hortiisa marka la fiiriyo kii iga cararay oo walwalay oo shaqo kala qabsadayna ma ciqaabin maxaa yeelay ma rabo institutionkan jilicsan inaan maaragtay uga daro maantay arrintii oo laga doodahayo golihiiyo CDC ah aysan dhibi jirinin rajadii Soomaaliya oo aanan taabanin laakiinse aan wax ku darnay oo arrinta inaanu u gudbino si gacmo Soomaaliyeed oo institutionska Soomaaliya in lagu xalilo waxa la wixii ka soo baxana la qabto yaanu dariiqeeda haynaa waana sii ballan qaadaynaa inaan ku hagoogano inaan nala faragelin maaha wixii ka soo baxana waa aqbalaynaa gebi ahaan waa hawl iyo qalbi aan u leenahay Soomaaliya waana sii wadi doonaa waa ka sii gudbahayaa arrintaas waxaan rabaa inaan si kooban marka uga hadlo su-aalihii loo baahnaa waa ka jawaabay waa caddeeyey in asalka khilaafkan suu ku yimid waa caddeeyey siduu kusoo gaaray mooshinka waa caddeeyey khaladkii kale oo aan tirsaday laakiin aan ku saburay waa caddeeyey wixii khilaafaadkii ahaa oo soo baxay inaanan qofna ku ciqaabin ee xukuumaddayadii intaagti tahay waa caddeeyey inaan go-aan xad ah ka sugayno baarlamaanka ana aqbali doono taa marka aan ka gudbo waxa aan rabaa inaan u gudbo khudbaddii aan ka jeedin lahaa baarlamaanka oo sideedii ah waxna aanan ka dhimin waxna aanan ku darin inaan halka ka jeediyo oo haddii baarlamaankii la diiday inaan ka jeediyo sabab kasta ha keentee ummadda iyo caalamkaba inaan la qaybsado anoo ka sugahaya waa ogahay cod ima siinahaya oo codku xaggu yaallaa laakiin garowsiyo iyo aqoonsi ka sugahaya maxaa yeelay dowladnimada aan maamulayno waxaa iskale dadka Soomaaliyeed meesha ugu badan oo wax la taagto ama wax la dhigta oo shaqada loo hayaa waa dadka Soomaaliyeed waxaan khudbadan ugu talagalay dhagahooda inay ku maqlaan bal eedayntii baarlamaanka waxaan qabo si kooban wax badan waa ogahay laakiin waxaan isiri lama qarin kare ummadda la qabso oo caqabadihii jiray qayb ka ahaayeen ayagana si kooban baan u taabanaya idinkoo raalli iga ah malaha waa dheereeyey aragtaydii yaan waxaan rabaa si toosa inaan u galo khudbaddii aan ugu talagalay inaan baarlamaanka ka jeedo khudbadda iyada ahi waxay u taallaa sidan soo socota بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaan waafiya u hibaynayaa guddoonka iyo xubnaha golaha haybada weyn ee shacabka oo ay habboon tahay in mar walba la xasuusto in fadhigiisa guud yahay hay-adda dastuur ahaan ugu sarreysa uguna awood badan qaranka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyi markay taariikhdu ahayd 24 bisha November 2013 waxaa golaha sharafta la iga keenay hindise mooshin la xiriira kalsoonida xukuumadda fursadan qaaliga ah ee guddoonku siiyay waxaan uga faa'iideysanayaa inaan uga jawaabo su'aalaha shanta ah ee moshinku ka kooban yahay su-aasha koobaad waxay la xiriirtaa su'aalo la iga weydiiyey marka la eego barnaamijkii alla timid xukuumaddu ay la timid sanadkii hore November 5 ma wada fulay mise ma wada fulay
shan qodob oo arrimaha gudaha arrimaha dibadda arrimaha bulshada iyo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha ah yaa qorshahaasi ku koobnaa waa su-aasha koowaad su-aashaas baan u gudbahayaa bal inaan ka jawaabo waa arrin su-aasha ugu dheer waxayna la xiriirtaa dhammaan barnaamijkii aan gudbiyey 5 November tani waa su-aasha aasaasiga ah kuwa kale afarta kale waa su-aalo kooban aad u kooban oo ayagana jawaabahoodu ay soo socdaan midanse waa ku daahi doonaa maadaama ay aad u dheer tahay waxaana taaban doonaa afartii arrimood oo muhimka ahaa dhammaantood si aan jawaabo waafiya uga bixin waayahay jawaabta su-aasha koowaad waayahay iyaduna waxay ku bilaabanaysaa horudhac kooban jawaabahayga muushinkani waxaan jecelahay in aan ku bilaabo weedii ina faraxa gelisay ee beesha caalamku 16 September ka soo jeedisay Brussels ee ahayd sidan kadib markaan ku qanacnay horumarka la taaban karo ee xukuumadda Soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda ammaanka dib u heshiisiinta iyo arrimo kale oo muhiim ah waxaanu go'aan ku gaaray in shirka Brussels loogu aruuriyo Soomaaliya taageero dhaqaale oo badan si loo dhiirigeliyo loona taageero horumarada ay iyo calaamadaha wanaagsan ee dawladnimo ee ka muuqda Soomaaliya statementigani waa statementigii Brussels laga soo jeediyey markii naloo kugu aruurinayay hantidii badnayd ee 2.4 bilyan oo dollar ahayd 16 September taa micnaheedu waxa weeye caalamku wuxuu aqoonsaday wixii Soomaaliya ka dhacay ayagoo lagu bays gareynayo wixii dhacayna waxa loo kaga abaalguday in Brussels naloo qabto weedhaas Brussels iyo shirarkii kale ee London Yokohama Geneva iyo kuwa kale ee qorshaysan intuba waxay ka markaati kacayaan kana tugtumayaan qiimeyn caalami ah oo dhexdhexaad markaan uga dan leeyahay waxa weeye aan ka imaanin dhinac dawladda ah ama shacbigeeda laakiin dhinac banaanka naga aha oo eegahayay qiimeynahayayna waxa gudaha ka socda dhanka kale IMF bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika way aamineen oo ku qanceen isbedelka iyo horumarka aynu samaynay iyo waxa nooga qorshaysan maamulka maaliyadeed iyo dhaqaalaha dawladdeena hay-adahaasi lama dhaqmaan xukuumadaha fashilaya waxay dhiirigeliyaan kuwa degdegta u kabanaya ee mustaqbalka leh sida Soomaaliya oo kale sida caalamku noola dhaqmayo waxay sawir cad u tahay sida aan u maamulayno siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya taa micnaheedu waxa weeye waan guulaysanay ee ma annaan fashilin haddaba maxaa noo qabsoomay muddadii koobnayd ee halka sano ahayd waxaan ku bilaabayaa inta aan shaqada la gelin waxaa la eegaa qofka isbedel doonka ah dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa halkan waxaan soo geliyey bal ha la eego dhaqanka iyo qaabka aanu ku bilownay shaqadii inta aanu aaminsanahay ama aan u maray shaqadii aynu qabanaynay waxaan la nimid dhaqan iyo mabda' siyaasadeed oo cusub oo ku dhisan isbedel doon saldigiisu yahay sinaan abuurid xasilooni siyaasadeed dhaqan shaqo samir badan iskaashi iyo musuq maasuq la'aan isbedelku waa xanuun badan yahay caadiyana sahal looma aqbalo hase yeeshee maanta beelaha Soomaaliya ee shanta ahi waa siman yihiin taa micnaheedu waxa weeye horteed ma sinayn dumarku markii ugu horreysay bay si maktab ahaan u muuqata uga qayb qaadanayaan siyaasadda dalka xukuumad ahaanna waxaanu muujinay in aanan ahayn mulkiilayaasha siyaasadda Soomaaliya balse aanu nahay maamulayaal oo qura tusaale waxaan si isdaba joog ah u qabanay shirweynihii cadaaladda siyaasadda waxbarashada culimada iyo caafimaadka haddana waxaa noo qorshaysan shirweynihii amniga halkaas waxaa ka muuqata in talada dalku u sii gacangelayso dadka weliba annagoon si buuxda u dhaqangelin habka federalismka ee aan dooranay kuna qeexan dastuurkeena
siyaasadan iyo dhaqankan cusub ee xukuumadaydu waxay horseed u yihiin isbedel la aamini karo ee Soomaaliya aan u horseedo dhaqanka iyo caqliga aan shaqada ku bilownay si kooban waxa weeye ummadu ha sinaato ha aaminto shaqada hay isu dulqaadato gacanta hay qabsato rag iyo dumarba hana yeelato talada marka aan ka hadlayo shirweynayaashan kala duwan oo ka hadlayo macnaheedu waxa weeye talada shirka ka timaada waxay ku beesgareysnaan doontaa siyaasadda dalka sida la aligay ayadoon federalismkii noo qorshaysnaa u soo wada hirgelinba siyaasadda aan ku shaqaynaynay waa mid dadka ka timid ma aha midaan annagu jeebka ka qaadanay sidoo kale hoosta waxaan ku xusay mabda'a ah siyaasadda mulkiilayaal kama nihiin maamulayaal baan ka nahay halkaas waxaan kaga gudbahayaa dhaqan iyo mabda' siyaasadeed oo cusub oo xukuumadaydu kow Soomaaliya ku bilowday waa ilaahay mahadiisa inaba abaal kagama rabno laakiinse waa ku faraxsanahay inaanu bilownay hadda wixii ka dambeeyana dariiq aan laga laaban doonin ay noqoto waayahay waxaan ka hadlayaa hadda xagga amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxaan la nimid isbedel dhab ah ee hoggaanka tayada tababarka iyo kororsiimo tirada 30 ilaa 40% noocyada ciidamada qalabka sida koob iyo 10 bilood kadib maanta agabka kala duwan ee ciidamadeena annaga la nimaadna ee uguma xirin amisom maanta mushaarka ciidamadeena kama sugno wadamo saaxiib ah ee khasnada dawladda laga baxshaa dhamaadka bil walba maanta nama saara cunaqabatayntii hubka ee si xorriyad leh baan u soo gadanaa hub iyo saanadba maanta tababarka ciidamadeena waxaa lagu qabtaa dalka gudihiisa waxaana kor u kacay tayadii disibliinkii kalsoonidii iyo waxqabadkooda diyaar marka la gaaro 2016 tirada ciidamadu waxay kordhi doontaa in ka badan 2 shibaar intaan ugu nimid November 2012 xagga amniga iyo ciidamada waxaan maanta iska kaashanaa in ka badan 6 wadan oo saaxiib ah iyo wadamada gobolka ee ciidamadu Soomaaliya ka joogaan ee u dhabar adeegay kaalmaynta amniga dhanka la dagaalanka argagixisada oo ah mushkiladda ugu adag ee hortaagan dawladnimo ana qaada ee Soomaaliya waxaanu xaqiijinay guulo wax ku ool ah ee xagga xoreynta xog ururinta muquuninta cadawga wacyigelinta dadka dhaqan celinta dhalinyarada iyo iskaashiga caalamka tirada amisom ee aan iska kaashano amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxaa degdeg ugu kordhi doona in ka badan 4,000 oo ciidan ah waxaa noo qorshaysan dhowaan howlgal baaxad leh ee isugu furmi doono dhammaan dalkeed wadankeena faahfaahin intaa ka badan halkan kama bixinayo waxaanse ilaahay ka rajaynayaa sidaan ku talagalnay in bartamaha sanadka soo socda ee 2014 aan gaarno Soomaaliya aad uga bedelan tan maanta gaar ahaan xagga isu socodka iyo muquuninta xajirka hubaysan waxaan idin xusuusinayaa in argagixisadu tahay mushkilad dhab ah ee dariska iyo caalamkuba nala wadaago sidaas awgeed iskaashigoodu waa gax istaraatiijiyadayada dhabta ah ee xagjirnimada hubaysan ku aadan waa dulqaad la'aan iyo ciribtir buuxa xagga siyaasadda iyo dib u heshiisiinta si aan u dhageysano talada dadka ulana noolaano dareenka dadka waxaan booqasho ku tegay Puntland galmudug Himaaniya xeeb Dhuusamareeb Aabudwaad Beledweyne Jowhar Balcad Afgooye Marka Baydhabo Garbaharey iyo Kismaayo waa dalka xooggiisii heshiiskii Addis Ababa waa guulaystay wuxuuna suurtageliyey soo iftiitaanka maamulka Jubbooyinka wada hadalkii aan bilownay ee Istanbul ee 3 biloodlaha ahaa waa socdaa qorshihiisiina kama leexan
dantuna waa in lagu gaaro wadajirka Soomaaliya burcad badeednimadii ka jirtay xeebaha iyo badaha Soomaaliya hal sano kadib maanta waa baaba qafaalkii iyo madax furashadii xanuunka iyo ceebta badan nagu hayn jirtay waa laga raystay maamulka hawada Soomaaliya 20 sano kadib ugu dambeyn April 2014 ayaan si rasmi ah ula soo wareegi doonaa maamulka iyo kharashkii laga arooriyay muddadaas oo ka badan 20 milyan oo dollar xagga arrimaha bulshada waxaan alifnay kuna guulaysanay qorshe waxbarasho oo noociisu ku cusub yahay wadamada dagaalada sokeeye ay daashadeen sida Soomaaliya ee la yiraahdo aada dugsiyada oo 1 milyan oo arday ay waxbarasho ku helayaan muddo gaaban ilaa hadda 1500 oo macallin ayaa la qoray in ka badan 1000 macallin ayaanu iyana dib ugu yeeray si ay u hawlgalaan caafimaadka qaab cusub baan u wajahnay ee suurta gelinaya caafimaad bulsho ee sugan oo dhamaystiran ilaa iyo hadda gobolada oo dhan ma aanan wada gaarin sababa amni awgeed hase yeeshee barnaamijka EBHS waa tijaabo caafimaad ee wadamada nooceena oo kala ah ay ku liibaaneen annana waa ku adkaan doonaa hirgelintiisa barnaamijkaas waxaan la kaashanaa hay'ado caalami ah iyo wadamo saaxiib ah biyaha ceelasha dhaadheer in ka yar muddo sanad ah ayaan qorshaynay in laga qodo dhammaan qaybaha Soomaaliya 160 ceel oo maaliyadooda aan ka helay oo ay siida iyo bangiga Islaamka hawsha dhaqangalkeedu waa bilaabmay adeega boostada dadaal badan kadib waxaan dib u soo ceshanay xubinnimadeenii buuxday ee adeega boostada ee caalamiga ah oo aynu muddo 20 sano ka badan ka maqnayn tallaabada muhiimka ah waxay horseedaysaa in dhawaan adeega dhinaca boostada ah oo ku tiirsan adeega guud ee boostada caalamka dalkeena laga hirgeliyo adeegaasi waa mid aakhirka ku faafaya dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka iskuna xiraya dalka iyo dibadda xagga xuquuqul insaanka waxaan samaynay tubta difaaca iyo horumarinta xuquuqul insaanka waa roadmap waxaa ammaan naloo ka soo jeediyey markii ugu horreysay shirkii Geneva ee sanadlaha ahaa ee Soomaaliya loo qabtay xagga arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska waxaan horumar miro dhal ah oo caalamku garwaaqsaday ka gaarnay maamulka maaliyadda min xirayn ilaa kharash waa hab suuro gelinaya in loo maamulo maaliyadeena qaab muuqda la aamini karo ee musuqmaasuq la'aan ah barnaamijka SSS waa noo shaqeeyaa hadda in ka badan 600 oo shaqaale ah ayaa bil walba mushaarka toos uga qaata isla barnaamijkaas waxaa ku mataanaysan mashaariic yaryar oo loogu talagalay qaybaha dalka ee kala duwan dakhligeena guud oo bishiiba ahaa 2.5 milyan Oktoobar 2012 maantay waa 9 ilaa 10 milyan bishiiba xisaabaheena oo dhani waxay maraan habraaca xisaabeed ee dawladnimo iyo miisaaniyadda taamicneedu waxa weeye waxaan miisaaniyadda iyo sistamka dawladda soo marin ma ka dhex jiraan bangiga dhexe si buuxda buu u shaqeeyaa maanta waana meesha keliya ee dawladdeena wax walba oo maaliyad la xiriira u soo maraan gudaha iyo dibaddaba korortiimo maaliyadeed oo joogto ah miisaaniyaddeennii 2013 oo si sharci ah u martay baarlamaanka waxay ka badnayd 24.3 boqolkiiba miisaaniyaddii sanadkii 2012
tan 2014 oo sanadka soo socda ee aan diyaarinayna waxay ka badan tahay boqolkiiba 102 tii 2000 tan hadda sanadka naga dhamaanaya ee 2013 yani waxa weeye miisaaniyadii sanadkan aan isticmaalay iyo tan sanadka dambe aynu qorshaynay waxay isdheer yihiin way laba jibaarantay in ka badan 100%. weliba ma aanan tixgelin kaalmo dibadeed oo badan oo aan ka filayno caalamka. koritaanka dhaqaalaha iyo ganacsiguba waa 3 jibaarmeen marka loo eego sanadkii hore. maanta waxaan leenahay sharciga maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya iyo shuruuc kale ee kaabaya horumarinta ganacsiga. shariikado badan oo caalami ah ayaana maanta u tartamaya maalgelinta Soomaaliya. way ka bedelan tahay xaalku hal sano ka hor sidoo ahaa. qorshaha hiigsiga cusub The New Deal Compact waa guul aynu gaarnay waxaana loo ballan qaaday kaalmo dib u dhis ee gaaraysa 2.4 bilyan oo dollar. waxaa jira ballanqaadyo badan ee lagu heli doono kaalmooyin dhaqaale iyo farsamo ee ka madax bannaan qorshaha The New Deal. xagga arrimaha dibadda maxaa ka qabsoomay? xiriir siman ee isxurmayn iyo iskaashi ku dhisan yaan la leenahay maanta caalamka. aad buu u horumaray xiriirkeennii wadamada dariska ah. 6 bilood ee u dambeysay in ka badan 10 wadan yaa safiiradoodii si rasmi ah looga guddoomay waraaqihii aqoonsiga oo qaarkood bilaabeen ismihii safaaradahooda. maanta aqoonsiga iyo la dhaqanka Soomaaliya ee caalamku mugdi kuma jiro. halkaa waxaa igaga dhamaatay su-aashii dheeray ee aan kaga jawaabayay afartii sektor oo aad 5 November 2012 baarlamaanka keenteen maxaad ka qabateen? jawaabta intan waa intii guud oo anigu ugu talagalay inaan prime minister ahaan ku jawaabo. faahfaahinta sector walba sida kan arrimaha gudaha, kan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda, kan arrimaha bulshada, kan arrimaha dibadda. haddaan baarlamaanka joogi lahaa waxaa idaba taagnaan lahaa wasiiradeydii oo mid walba faahfaahin intani waa intii guud ka dheer ka bixin lahaa wixii laga weydiiyana ka jawaabi lahaa. waa ka gudbahayaa halkaas waxaan kaga gudbay su-aashii koobaad. isla su-aalihii mooshinka waxaa ka mid ahaa su-aasha 2, 4, 5 oo saddexdooduba hal jawaab oo mid ay kaafin kardo kadib markaan arkay inay isku soo laalaabanayaan. marka waxaan door biday saddexdoodaba inaan si wada jira uga jawaabo kadib markaan arkay waxyaabahay isku weydiinayaan inay yihiin wax isku soo laalaabanaya oo aad ugu dhow. tusaale tan labaad oo kale waxay ka hadlaysaa dhismaha guddiga runta iyo dib u heshiisiinta iyo maxkamadda dastuuriga. tan afraad oo kale waxay ka hadlaysaa heshiisyo caalami ah ee gasheen maxaad usoo gudbin weydeen. tan shanaad oo u dambaysaana waxay ka hadlaysaa amniga iyo maamulada gobolada shuruucdii laga samayn lahaa maxaad ka yeesheen hirgelintooda. waa sahlan tahay dhammaan waxaana u haynaa jawaabo waafi ah. anigu intaan baan horay uga jawaabayaa. detailskii loo baahnaan lahaana waxaa la diyaar ah wasiiradeyda oo nasiib daro dhammaantayo aan nala siin fursadii baarlamaanka iyo ummadaba aan kula qaybsan lahayn jawaabahan dhaadheer ee aan kusoo talagalay. maxaa yeelay dhaqanka isla xisaabtanku dowladnimada waa usal annaguna waa soo dhaweynayna. sidee baan marka uga jawaabay su-aalahan la xiriira guddiyada shuruucda umuuraha lamidka ah oo ay ka muuqatay baarlamaanku inuu walwal ka qabo marka la eego mooshinkii Cabdullah. waayahay su-aalahan wada jir sidan baan uga jawaabay. mudanayaal iyo marwooyin
eedeymaha su'aalahani xambaarsan yihiin waa kuwo hubsiimo dheeraada u baahan lama abuuri karo hay-ado iyo guddiyo iyadoo aan marka hore sharciyadooda la samayn la ansixin saxiixna aanu ku dhicin waxaan uga dan leeyahay processka ay soo maraan xukuumaddu iyadoo gudanaysa doorkeedii ahaa in ay soo gudbiso hindisa sharciyeedyada hay-adaha kala duwan u noqon lahaa aasaaska ay ku dhisan yihiin waxay horaantii ilaa bartamihii sanadkii 2013 baarlamaanka farta ka saartay hindisa sharciyeedyadan soo socda hindisa sharciyeedka golaha adeega garsoorka hindisa sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuurka hindisa sharciyeedka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka hindisa sharciyeedka xuduudaha gobolada iyo deegaanada hindisa sharciyeedka xuquuqda aadanaha hindisa sharciyeedka dhismaha gobolada iyo degmooyinka hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisa sharciyeedkii dhismaha hay-adda maaraynta musiibooyinka hindisa sharciyeedkii maalgelinta ganacsiga iyo warshadaha hindisa sharciyeedkii hay-adda duurista hawada ee rayidka hindisa sharciyeedkii runta iyo dib u heshiisiinta hindisa sharciyeedka shaqaalaha arrimaha dibadda hindisa sharciyeedka xafiiska gardoonka hindisa sharciyeedka hay-adaha dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga hindisa sharciyeedkii bangiga horumarinta iyo dib u dhiska soomaaliyeed hindisa sharciyeedka kalluumaysiga iyo ee Soomaaliya hindisa sharciyeedka xeerka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka shatiyada ganacsiga hindisa sharciyeedka sumadda ganacsiga iyo hindisa sharciyeedka guud ee xeerka maaliyadda waa 21 hindisa sharciyeed oo aanu gudbinay bilowgii ilaa bartamihii sanadkan oo aanu joogno dhammaantoodna aan gacanta ka saaray baarlamaanka baarlamaanku wuxuu ansixiyey dhowr ka mid ah sharciyada hase yeeshee saxiix kuma wada dhicin haddii taasi dhacday waxaa kale oo dastuur ahaan u qoray baarlamaanka in uu ku dhawaaqo in sharciyadaasi si toos ah ay u saxiixan yihiin automatic ratification 14 maalmood kadib si ay xukuumaddu howlaheeda si buuxda ugu gasho taasina ma dhicin ilaa hadda waxaan si buuxda halkan ugu cadeynay 21 hindisa sharciyeed oo qaarkood la soo ceshay inaanu muddo 6 bilood gudaheed ilaa 7 bilood gacanta ka saaray baarlamaanka waxaa intaa dheer in xukuumaddu u gudbisay baarlamaanka muddo ka hor heshiisyo caalami ah ee ay ka mid yihiin heshiiskii tababarada ciidamada ee Soomaaliya iyo Turkiga بروتوكولكي معاونة دقالة صوماليا iyo Turki heshiiskii caalamiga ahaa ee Cotonou heshiiskii wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo isgaarsiinta ee shirkadda Fabori ee garoonka Aadan Cadde heshiiskii iskaashiga military ee Talyaaniga iyo Soomaaliya heshiiskii wasaaradda maaliyadda iyo Norway ee tafiiraadka maaliyadda gaarka hindisa sharciyeedyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu baarlamaanka u gudbisay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay waa ilaa 30 marka la isku daro hindisa sharciyeed iyo heshiisyadii caalamiga ah markaad barbar dhigto xataa baarlamaanada dalalka degan waa tiro aad u badan in xukuumaddu baarlamaankeeda 30 hindisa sharciyeed iyo heshiisyo ay u gudbiso sanad gudihiisa arrintaas ayada ahayd dhabtii waxaa naga galay shaqo badan waana ku faraxsanahay xiriirka noocaasa oo ilaa dogomeyada hindise iyo heshiisyo aanu u gudbinay baarlamaanka halkaa waxaa kaga jawaabay su-aashii dheereyd ee 2, 4 iyo 5 saddexdaas su-aaloodba hal mar aan kaga jawaabahay waxaan u gudbayaa su-aasha saddexaad ee mooshinka ee la xiriirtay si kooban maxaad waxqabadkii xukuumadda iyo balaankii xukuumadda loogu soo gudbin waayey xukuumadda maxaa baarlamaanka loogu soo gudbin waayey waa dhab baarlamaanku xaq wuxuu u leeyahay inuu na weydiiyo
strategic planka xukuumadda weliba wasaarad ahaan annagoo guddiyada kala duwan la xisaabtamayno si waxa aynu qabanay iyo waxa noo qorshaysnaa laysu barbar dhigo oo la ogaado meesha aan wax marayno su-aashaas waa garowsanay waana su-aal xaqa oo xiriirka baarlamaanka iyo xukuumadda saldhig u ah su-aashaas jawaabteeduna waa tan kadib markiina la weydiiyey strategic planki iyo waxqabadkii xukuumadda si laysugu eego waxaanu kaga jawaabay sidan taasi waa dhab waana la soo weydiiyey documentigaas hase yeeshee isla markiina la weydiiyey ayaanu golaha baarlamaanka u gudbinay qorshihii waxqabadkii 10 wasaaradood ee xukuumadda waxaana halkan ku hayaa cadayntii saxiixii iyo shaabadii uu agaasimaha xusuus dhowrka golaha shacbigu nagaga guddoomay soo gudbintii qoraalka qorshahaas ee wasaarad walba ee loogu talagalay guddiyada baarlamaanka halkan ayaan ku haynaa waata warqadiina loo soo gudbiyey ee la xiriirtay ka jawaaba hawshan waata warqadii aynu baarlamaanka u gudbinay istaamkii iyo aqbalaadii baarlamaanku inay dhammaan naga heleen strategic plankii iyo waxqabadkiiba 10 wasaaradood istaamkoodina halkaasuu saaran yahay guud ahaanna saasaa loo gudbiyey warkan aan idinla qaybsanayaa waa warkii ay ahayd inaan baarlamaanka hortiisa kaga doodno oo ay ansusno sida wasaaradahaygu ula shaqeeyeen baarlamaanka waan ka gudbaynaa marka su-aashaas ayada mar haddaan documentina ka keenay garowsanayna wax dambe oo aan kaga fiidahaya ma jirto ayada waxaan marka halkaa igaga dhammaaday dhammaan su-aalihii 5 ahaa ee uu ka koobnaa mooshinkii xukuumadda laga keenay waxaan halkan rabaa marka haddii shaqo laysku diro annaga qaranka Soomaaliyeed baa shaqo noo diray hay-adii fulinta aynu nahay waxa aanu qabanno waa inaysan sir noqon waxa caqabadaha oo naga hor yimaadaana waa inaysan ayaguna sidoo kale sir noqon si naloo kaga kaalmeeyo ummadda Soomaaliyeed nagu ogolaan sidoo kale wixii kala bixina oo aynu qabnana si dalka iyo dadkaba ay u anfacaana xaq baan ayadana u leenahay in la ka dhigto sida la aliyay markaan dhameeyay umuurihii mooshinka iyo wixii la xiriiray halkan waxaan ku hayaa caqabadihii muddadii aynu shaqaynayay aynu la kulannay iyo wixii aynu aragnay ayadana waa qabaa in la garowsan doono waxaanu leeyahay ma nihin dawlad ku meel gaar ah waxaanu nahay dawlad constitutional hase yeeshee institutioniskeena systemkeena iyo habdhaqankeenuba uma diyaarsana umana bisla dawlad dastuuri ah waxaa nagu fakaday hal mar nagu soo fakaday mas-uuliyaad aanaan u diyaar garoobin aanaana wada xamili karin hal waqti aysanna jirin cid si qorshaysan noola qaadaysa sida qalabaynta ciidanka 1 sano ka hor mas-uuliyaddaas waxaa nala wadaagi jiray amisom waxa weeyaan taa micnaheeda haddaan si kooban uga hadlo mas-uuliyaadkii dawlad mustaqil ah oo constitutional ah oo dhan baa hal mar lagu soo wareegay ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto maaliyad ama mid kastoo ay noqoto cid noo qorshaysan iyo base dhaqaale iyo base resource dadeed iyo wax badan oo horay noogu diyaarsanaana runtii waa jirtaa wax badan oo wanaagsan oo aanu ka dhaxalnay xukuumadihii naga horreeyay laakiin mas-uuliyaadkii nagu soo fakaday way ka cuslaayeen awoodayada tusaale hal mid baan usoo qaatay gaar ahaan waxa weeye qalabaynta ciidankeena oo aan hadda ku soo sheegay saanadiisa loojistikadiisa mushaarkiisa in xukuumaddayadu ay ku guulaysatay ayna wada qaatay annagoo dareen gaara kale ciidamada qalabka siday gacanta Soomaaliya u geli lahaayeen cid kaleba hanala ka kaalmeeyo tan saddexaad waa mushkilooyin badan oo waqti dheer ka soo dhacaya Soomaaliya laakiin ayadana mas'uuliyadeeda aynu hal mar inaanu wada master garayno ay mas'uuliyadaas aynu qaadnay waxaan kulantanay oo tahay hal mar inaan la wada tacaalo
dawlad la'aan gaamurtay oo nabaday fawdo iyo kala dambayn la'aan kala qaybsanaan fakhi argagixiso burcadbadeed iyo waxyaabo kale oo badan ayadoo muuqaalkeena image-ka dawladnimo usan xoogganayn hawlahan ayaga ahi waa duruufta rasmiga oo dalka ka taagan oo si toos ah markaanu noqonay dawladdii dalka mas-uuliyadeeda toos anaan cidna ku halaynayn muddo dheer ayadoo ururtayna aanu hal mar dhaxallay dabcan waa u bareeray waana laka sugayaa mas-uuliyadeeda laakiin culayskeeda waanu sheegaynaa number 4 waxaa ku dhex nool dawladnimadeenna dhaqan kooxaysi ku dhisan cid walba oo leh qorshe ajende gaar ah ee aan waafaqsanayn dastuurka waa u halis dawladnimadeenna curdanka ah xasilooni la'aanta siyaasadeed ee maanta kama dhalan institutionskeena dhexdooda waxaa wada gacmo kale oo awood iyo ujeedo gaar ah leh waa khilaaf la dhex keenay aniga iyo madaxweynaha golaha baarlamaanka golaha xukuumadda tusaale 2 ilaa 3 toddobaad ka hor intaan buuqani abuurmin madaxweynaha waxaan ka wada hadlaynay 2016 oo ah waqtiga teeramkeenu ku egyahay iyo wixii ka dambeeya taa micnaheedu waxa weeye waqtigan dhib kama aanaan arkaynay sidee halkeebaan Soomaaliya u hogaaminaa 2016 yaanu ku mashquulsanay 2 ilaa 3 wiil ka hor golaha xukuumaddu waxay ahaayeen golo si wada jir ah consensus go'aankooda ku gaara inuu waanu si buuxda yaanu haddaan go'aan qaadanayno badanaada dhaqanka u gaarka ah xukuumadayda wuxuu ahaa wax walba waxaanu ka aragnaa si wada jirahaanu 90% u wada aragnaa 2 ilaa 3 toddobaad ka hor golaha baarlamaanka mooshin kama jir waa la socotaan waxaa muqadimiin ka ah xasilooni la'aanta siyaasadeed ee maanta wasiiro ka mid ah xukuumadda oo qaba in ayagu ay soo harayaan oo si sahlan loo bixin doono ra'iisul wasaaraha waxaan si cad ugu sheegay madaxweynaha oo dadaalkiisa la'aantii halkan la isla soo gaareen inaysan gar ahayn in koox dana gaar ah leh Soomaaliya looga haro xildhibaano waxaan idinka codsanayaa maanta in arrinta aan ka digayo idnaan fududaysan kuna dhiirataan xasilinta Soomaaliya oo codkiina xaqa ah ku baajisaan in loo qafaalaado koox gaar ah taasoo ah caqabad ballaaran ee noqotaal maanta si kooban sida aan wax u ogahay anoo aanan ugu wada tiigsanayn oo markasta dareenka iyo dulqaadka institutionska aynu leenahay eegahaya waxaan ka fursan waayey inaan kooxdan gaarka ah oo danleyda ah doorka ay ku lahaayeen xasilooni la'aanta Soomaaliya inaan cusub waa ka maarmi waayey sababtoo ah waxaan dareemay oo qalbigayga iyo Soomaali jacaylkayga siinaya marka aan ka hadlayo maxaa idinku arkaaday doorka kooxaysiga haddaan ka hadlin Soomaaliya waa khiyaano wax aan taro waxaa u fiican inaan wax walba oo dawladnimada iyo constitutionka Soomaaliya parallel la ah dana la ah wata inaan cadeeyo taasi waa ogahay hawl yar ma aha laakiin mid ka weyn oo danta Soomaaliya ah yaa habboon in loogu huro looguna dhiirado in la sheego mushkiladaasi waa mushkilad taagan gunaanad waxaan si buuxda uga mahadnaqayaa guddoonka iyo golaha fursadan qaaliga ah ee difaaca xukuumadda haddii mooshinkani ahaa waxqabad la'aan waxaan saacadan qabaa oon dareensanahay intaas xal loo helay oo laga bogsaday waana soo dhawaynayaa dhaqanka isla xisaabtanka hase yeeshee
waxaan baarlamaanka sharafta leh ka codsanayaa in aan nalaga dhex arag siyaasad kale oo qiimayntu ku ekaato waxqabadka xukuumadda. dhankayga waxaan maanta qoray taariikh kadib markaan noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee isagoo jooga ku soo simay muranka ka dhashay iscasil iyo iscasili mahaye golaha shacabka. go-aankani ma sahlanayn mana hurid la-ayn, waxaanse si kalsooni leh u qaatay inaan idin aamino oo dib idinkugu soo cesho kalsoonidii aada igu siiseen 219 cod si aan taariikhda iyo dowladnimada Soomaaliya bog ifaya ugu yeesho. malahayga idinkana waxaa idin dagatay guul iyo taariikh ee u codeeya waanu ku kalsoonahay xukuumadda si aad u noqotaan horseedayaasha dowladnimo dastuur ku dhaqanta. mudanayaal iyo marwooyi, waxaa Soomaaliya maanta u kala maqan tahay oo weliba usii kala firdhaysa ma aha dowlad nacayb, ma aha midnimo nacayb, ma aha qowmiyad nacayb, ee waa qoonsimaad iyo walwal laga qabo ku dhaqanka dastuurka iyo wixii la isla ogaa. xog ogaal ahaan waxaan si buuxda idinkaga codsanayaa igama dhagayelidine u hiiliya dastuurka iyo dimuqraadiyadda, u hiiliya Soomaaliya. maanta ummadeenna iyo caalamkuba waa idin wada eegaya. codkiina xaqa ahina wuxuu isu soo dubi karaa dadkeenna kala dumay. allaha idin waafajiyo cadaalad. halkaas waxaa ku soo gabagabeeyey khudbadii dheeray oo ugu talagalay baarlamaanka hortiisa inaan ka sheegiyo, kadibna ay ugu xigsadaan faahfaahin 10 wasaaradood ciddii looga baahdo. halkaasna dhammaan wax allaala wixii su-aalo ay ka qabaan baarlamaanku aynu kaga jawaabno. dabcan waa sheegay in haddii walwalku ahaa waxqabad iyo waxqabad la-aan inay ku filan tahay. codsigaygiina waa jeedsaday. waxqabadka ka sokow caqabadihii aanu soo aragnay sanadka gudihiisa waa sheegnay. gabagabana wixii aan ku talinahayo waa sheegay. intaasi waa intii maantay aan soo qorsheeyey ee ila gudboonay. dabcan maadaama hawshaan aan ka sii daynahayo xafiiskayga ee aanan jooginin baarlamaankii, wasiiradii fursadda ma siinayo meel aan su-aalihii iyo sistamkiiba u diyaarsanayn. halkaas waxaan kusoo koobayaa khudbadii aniga gaarka ii ahayd. waa qabaa in ummadayda iyo caalamkuba i maqlay inay ku qanceen. waxaan xasuusinahayaa waxaan u soo qabtay Soomaaliya wax aan aada ugu faraxsanahay. waxaan taariikhdayda ka arkahayaa weligeyna ma hagran, barmadowna kuma lihi, diyaarna uma ahi ajenda Soomaaliya taabanahaya si cad inaan u taabto oo si meel la arki karo kaga qanco maahe inaan si fudud uga haro. maxaa yeelay hawsha aad u jeedaan oo dhan oo caalamka oo qofku ku qiimaysan yahay, qofku nolosha wuxuu u yimid maxaa dalkaaga iyo dadkaaga u qabatay ee maxaad ka qabsatay ma aha. arrintaasi waa arrinta aadka maaragtay runtii madaxayga markastoo ugu shigta. waa mahadsantihiin. waan ku faraxsanahay fursaddan wanaagsan inaan dadkayga la wadaago. runtii ma eedaynahayo eeda gaara baarlamaanka, uma soo jeedinahayo fursaddan, laakiin waxaan hubaa wixii la gudboonaa kuma aysan dhaqaaqin. Soomaaliya ha noolaato. waa mahadsan. haddii aad doonayso guri, haddaad doonayso guri yar, haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado, jikadoo casriya iyo weliba beerta nasashada oo aad u ballaaran, iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay. intaba waxaa kuula diyaaray sharikadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada in loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale, ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto. waxaa intaasi dheer meel kastoo shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay
toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo weliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda weliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan